waa maxay hadafka nolosha? hadafka nolosha qofku haddii uu ka wareero wax walbaba way ka wareeri doonaan. hadafka nolosha haddii uu ku toosana wax walba waa ku toosayaan. tusaale ahaan haddii aad guriga ka baxdo subaxdii waa inaad hadaf leedahay oo aad guriga uga baxdo, ama iskool aad, ama shaqo aad, ama meel kale u soco. laakiin macna la-aan inaad guriga uga baxdo ma dhacdo. qof aan hadaf lahayn inta badan ma dhacdo qofka in guriga ka baxo macna la-aan, xataa maqaayad shaah ka soo cab. laakiin waa inaad un hadaf guriga uga baxdo un, xataa qof saaxiibkaa booqo. marka noloshu haddii ayaan macno inoo lahayn oo aan kaan hadaf haysan, waxay noqonee nolol aan guulaysan. ilaahina wuxuu leeyahay faman zuxzixa can inneeri wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lquruur. waxaa guulaystay oo hadafkoodii ka mira dhaliyey qofkii naar laga badbaadiyo islamarkaana jinno la geliyo. goormaan dhihi karnaa marka waanu guulaysanay? goormaa la dhihi karnaa qofkan waa guuldaraystay? anugu waxaa laga yaabaa inaan guusha iyo guuldarrada aan ku miisaano qofkan jaamacadu ka baxay, shaqo fiican u helay, baabuur cadow ku socdaa, xaasaska iyo ilmaha u caafimaad qabaan, dhawaa iskugu toostaba. guul waxaa laga yaabaa taas inaan u naqaano dadka qaarkood. waayo xadiidku wuxuu ahay oo nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam asxaabtay war ma taqaaniin ayuu yiri min almuflis, qofka oo ceyrta ah oo waxba haysan ma taqaaniin. markaasay yiraahdeen qofka aan waxba haysan waxaan u naqaanaa ma laa diinaar walaa dollar. qofkaan waxba haysan oo lacag haysan ayaan u naqaanaa. wuxuu yiri maya ma ahan, waa gaftiina ka warramay. wuxuu yiri qof aan waxba haysan suubano sallallahu alayhi wasallam oo ceyraabay waa qof qiyaamaha yimiday, soo shaqaystay, soom badan la yimiday, sake badan la yimiday, xaj badan la yimiday, sadaqo badan la yimiday, macruuf oo amre la yimiday, haddana ka baahan. oo waxaa laga yaabaa qofkaas aan dhahno 10 kiilo keensadaba, jinnadana waxaa lagu gelaya 10 kiilo aan dhahna masalan 10 kiilo qof yimid wuxuu yiri qofkaan ilaahayo maalin ayuu caayay, waxaa leeyahay 2 kiilo u jar. qof kale wuxuu yiri aniga maalin ayuu been iga sheegay, waxaa leeyahay rubac u jar. qof kale yimid wuxuu yiri ilaahayo aniga maalin ayuu waxaanan ahayn meel aanan joogin oo igu tilmaamay, waxaa leeyahay been abuur, waxaa leeyahay rubac u jar. haddana kadib waxaa leeyahay marka waa la xisaabiyey qofkii inta uu haystay iyo intii lagu lahay, waxaa batay intii lagu lahay. halihii marka soo hartay waxaa leeyahay qofkan maadaama aan hadde meeshaas hebel wax iisoo dir waa deynaysanahay ma jirto, waxaa leeyahay qofkan dembigooda laga soo qaado ee qofkan dembigeeda hala saaro, naartana saas ha loogu dhaadhiciyo. marka walaalayaal waxaan guulaysanay oo aan dhihi karnaa qofkaas wuu guulaystay qofkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyo. wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu. wixii ilaahay iyo rasuulkiisa ay jideeyeen qofkii qaato ayaan dhihi karnaa qofkaas waa guulaystay. waxaan kaloo ka sokeeyo dhan guul ma ahan, waa guul darro. wax walba oo kuu hagaago haddii jidka ilaahay aad ka wareerto wax aad haysata ma lahan. marka walaalayaal naftayda iyo naftiina waxaan isku boorinaynaa oo aan ku dadaalaynaa meel allah meesha harta joog, adduunka meesha harta ka joog, ilaahay caabud un bis. wax walba aad samaysanaysid ilaahay caabuditaankiisa ka ahaato. haddaad shaqaysanayso ilaahay dartii u shaqeey, haddaad wax bixinayso ilaahay dartii u bixi, haddaad qof caawinayso ilaahay dartii u caawi. laa qabiil, laa qaran, laa qoys, laa qaraabo, waxaas dhan ka kaalay ilaahay dartiis u bixi bis. wixii aad bixisana ha sheeganin. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdeen saxan ku gud, saanna saan ku gud. wixii aad bixiso inay kugu soo noqdaan waaye. laa, taas waa qalad. ilaahay dartii u bixi. wax qofka aad siiso wanaagga aad u qabato rabbi dartii ha ka ahaato. maalinta yowm alqiyaama inaad ku fakanayso u niyeyso. haddii inta adduunka joogto oo adiga abaar kale kuu gudo laa balaa dhib ma lahan taas. laakiin ulajeedkaaga uusan naqan aniga maanta kulanan qabaa hebel ayaan wacaa si uu beri ii waco, si dadka qaarkood ay sameeyaan. taas walaalayaal ilaahay dartiis wax walba hadday naga ahaadaan wallaahi waa noloshayna dhan waa isbedelay. oo nolosha reerarkeena ayaa isbedelaya, oo nolosha dowladda ayaa isbedelaysa, oo nolosha mujtamac ayaa isbedelaya, oo nolosha adduunka dhan ayaa isbedelaya. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam salligiisa ayaan badinaynaa. saacad walbo aan joogno, haddii aan fadhino waa ku salinaynaa, haddii aan socno waa ku salinaynaa, haddii aan raashicinayno waa ku salinaynaa, haddii aan shaqaysanayno nolol maalmeed kale ku jirno waa ku salinaynaa. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalama
وحالي الدعاء والبا لما أقبله ووالع الشاء إلا النبي أوغا صليسو حديث أيا هاي عن فلا موغا صليق النبي وحوري صلى الله عليه وسلم أنو وحان إلهي أطوبة كينا 100 مرة بقول مر يعني أطوبة كينا إعدادو أطوبة كينا بقول مر وحان مالينا أنك وحين رتهاي بقول مر وحا أستغفر الله وحا الغياب أنا كل كرتو بقول مر وحكير هل دقيقة موغا هل دقيقة ومالنت بعد كسيسو إلهي waxaan qabaa wax badan ay noo faa'iideey kartaa qofkii ka badi karto qofkii sunno ku dari karto waayo madad meel u socoto ee aad wadan kale aadayso waxaan ognahay inta badan dadka inay tigidka iyo baasaboorka iyo maxaa la dhihi jiray pocket money-ga iyo dhar meeshaas ku haboon iyo daal ku ron yahay telefoonka iyo hadii telefoon lagu shubanayo meelo badan ay ka fikiraan marka walaalayaal maxaa ku diiday inaad ku fikirto dhimashada iyo waxa ka dambeeyo waayo qof walba wuxuu og yahay in la dhimanayo gaal hadaad weydiiso aad tira maxaad ahaanay wuxuu ku leeyahay waa dhimana mulxid hadaad weydiiso wuxuu ku leeyahay waa dhimana muslimka kadalika qof aan maanta ogoleen oo aan raali ka ahayn inay dhimanayso ma jirto ilaahayna wuxuu yiri walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun war ha dhimanina dadow illaa idinkoo muslimiin ah oo hogaansama maahane muga dhimashada ma baaji kartid ama dhakhtar naqo ama madaxweyne naqo waa ama boqor naqo ama daal guron yahay saqiir naqo ama sabajoog naqo dhimashada ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa keenay noloshana asiga ayaa keenay lama baaji karatas waxaan baaji karnaa oo hadaan ilaahay tala saarano aan sabab u noqon karnaa inaan ilaahay jidkiisa ku taagan aan dhimano markaas sabab ayaad noqon kartaa inaad badbaado ilaahayna aad tala saarato way aayad waatay eeday نبي محمد وعليه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلهي كعبصه إلهي عابد تيري إلهي كتاقناو انت أي كاغت ماذا يقينته وأتكلمته آيات داس نبي محمد هذا يكون أكيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وادنتي وحا آيات نبي كتاقنته إلا هذا وقف كسته